tababar loo qabtay naadiga akhriska afka Soomaaliga ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, madaxda akademi goboleedka afka Soomaaliya aga abwaano iyo qaybo kala duwan bulshada. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta naadiga akhriska afka Soomaaliga ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka iyo akademiyada afka Soomaaliyeed oo mar walba ka daalin inay kor u qaadaan afka Soomaaliga. waxaan rabaa inaan mahad ballaaran oo aan soo koobi karin u jeediyo akademiyad goboleedka afka Soomaaliga ee aga. mar haddaad hawl qabatid waxaad u baahan tahay cid ku tiraahda hawshaad qabatay way guulaysatay. sidaa daraaddeed waa sababta dadka guulaystay guulahooda banaanka loo soo dhigo si ay u ogaadeen waxa ay qabteen weyninkooda ama se ay u qurux badnaayeen. waxaan leeyahay akademiyad goboleedka afka Soomaaliga ee aga waxaad u taagan tahay horumarinta iyo hirgelinta afka hooyo, korinta iyo kobcinta afka Soomaaliga. hooyada wax ay ka taqaano haba yaraatee ma jirto. anigu intaan hadda marka qaadan ka horta waxaan islaam Soomaaliga si fiican baad u taqaanaa, waayo magaalada Muqdisho 13 baa soo galay. dadka jaamacadaha iyo waxbarashada la baranaya caadiyan waa si jiro waxaan islaam macluumaad ugu weyn ee afka taqaana adiga waayo. tababarka markaan qaatay kadib waxaan go'aansaday luqadda Ingiriishka daba carabkeeda inuu sabab waxba ii ahayn, waayo waxaa la dhahay tii sabadaryaal tu kala ku dara moogtahay inaan luqadda afka Soomaaliga barto xoojiyo, waayo iyadan dad ku noqon doonaa, iyadan qabiil ku noqon doonaa, iyadaana liigu aqoonsan yahay caalamka. waxaad ii sheegay nin waxaad yaray dhakhtar ahaa yaa soo magaalada ka shaqeeya nin aad wuxuu yaqaan uu ahaa. markaasaa wuxuu u baaday marka wadamada Yurub aaday si waxbarashadiisa u soo korarsado. marka dhakhtarkii awowgiisa oo xamar joogaa la hadlo markaas wuxuu dhahay wiilkaygiiyo waad baxday, maxaad u baxday aqoontaadii cilmigaaga waxaa way fiicnaayeen, maxaa hadda xag waxbarasho saacadda la sheegay dadka ii sheegeen aaday maxay ahayd. markaasoo awowgiisii wuxuu ku yiray awow shibsada inta gacantaan ku dhimata Allah naga cafiyo meesha waxaan leenahay ilaahay naga cafiyo intaa wax badan aan ka ogaanay cilmigii iyo caqli iyo fikir iyo talamarneed. waxaan ku faraxsanahay oo dibna loo arki doonaa inaan maanta helno farayaal badan. waxaan la yaabaa markaa waxaan isku fiirshay computerka xaafadda yaallo yaa qoraal aan hore u sameeyaan dib u akhriyay xaqiiqooda meeshaan ka soo bilaabay meeshaan ku dhameeyay hal xagga kuma jiro meeshaan ka soo bilaabay gudoomiye aqalka sare waxaan la socodsiiyay gudoomiye iyo sharafkii ciise ummadda wakiil xaqiiqo way ka baxday wax way noo batay wayna tabarkii shaqamaleha aan ka qayb galay kii igu taariikhda badnaana kan u ahaa aaminsanid intaa kadib waxaa runtii hambalyo u dirayaa dhalinyarta ku dhow 200 ee maanta runtii ka qaadanaysa halka shahaadada oo ay akademiyada go-aadkeeda goboleedka afka Soomaaliga aga ay u soo xidhayso maanta tababarada. runtii shahaadooyina maanta goobtan ka qaadanaya iyagana runtii waxaan u dirayaa hambalyo, waxaa leeyahay hambalyo. intaa kadib runtii tabada ugu toosiyay oo marka ugu horeysa wax ka qiimo badan inuu jiray laga qeybiyay oo lagu dhacdo kacali baahidaada noo sheeg. waxaan xasuustaa taariikhda marka ugu horeysay aan akademiyada aga la soo xiriirinay waxaan la soo xiriirinay akademiyada walaashka Sayid waxoogayo ah. markaasaan usoo bandhignay runtii baahidayada isla markiiba runtii si niyad oo aan runtii shuruud ku xidhnay ayay noo soo dhaweeyeen. kadibna waxaan usoo bandhignay baahiyahayagii. waxaan aaminsanahay waqtigaas oo ahaa sanadkii 2017 inay degdeg uga jawaabeen baahidayadii. maanta sanadka 2018 waxaan runtii wada shaqaynta ugu qiimaha batay ee aan runtii la yeelano institutions awgeed akademiyada aga. waxyaabaha kale runtii intaan soo noqon tababarkan soo noqon waxyaabaha kale kusida waxa weeye barnaamijyadeeda inta badan gaarka ah ayaan qabanay inay rol muhiima ku leedahay markasta oo aanay gacmaha naga laaban oo ay tahay garabkeega. taasaan runtiida muhiimayna duuboda. waxaa sidoo kale muhiim ahayd oo aan runtii laga ilaawada in maanta dhalinyarada halka ku sugan iyadoo hal shay laga qaaday in lagu dhaho baahidina noo sheega kadibna si degdeg looga jawaabo. maanta arkaysaa oo ay u fadhiyaan baahidoodii iyadoo uga jawaabay maanta ay u fadhiyaan.
gudoomiyaha akademi goboleedka afka Soomaaliga aga Maxamed Daahir Afrax ayaa sheegay in ay had iyo jeer u taagan yihiin sidii kor ay u qaadi lahaayeen akhriska iyo qorista afka Soomaaliyeed oo mar walba aan anaga ku faano. وأرجعني هنا يعني كذا كنت أنا كتحدثان حكمي حرفه أفصال جمع كذا قري وحكيرا يعني حروف اللاتينية وحنا قصة شيء غيب على شيء غيب ولا جديد غيب عن معرفتي أفكار وقال يعني أفكار طارق وحنا جت حرفها كتير أفكار لاتينية توضح زد iyo P iyo maxaa la yiraahdaa V iyo waxyaalahaas kuma jiraan xuruufta loo qaatay yani Soomaaliga loogu isticmaalo marka hadda waxaa shaac noqotay waad ku arkaysaa yani fariimahaas iyo waxyaalaha Facebook iyo baraha kale bulshada meelaha ku qorto ayagoo maaragtay yani xuruuftii la qaatay oo rasmiga ahayd waxay hadda afkeena lagu qoro intay ka tageen فقرية معرفة كوا دلقات وخبرني قريسي فرتن أي توريه وعلى كسائر وهكذا إس كل هاي زد قرية مكان نسا مثلا صاحب وشو أول باي يعني بعمله صاحب ده كليه كشوف يعني هذا الصاحب واحد بدني زد مكان صاحب بيدي صاحب بيدا وين أنا هيدا بي لو بدري وأنا أحط يعني أفصامي كانوا كتير هل كيف يعني لو ربع أنا في لغوية حياة يكفي أما تفرق فهمها أيوة أفصامي أفكيس يعني ما أعرف قيمين كان هو مخيل يقصدوي توي كذي أنا كنت حضرتان يعني فرنتي تبقى قاعدين ده صعب حالي لا كان لكن حياة سوى كذا لكن وش لورا ترى على ترى ففورن بيبنيهم تقولن عقاوة ما تحتاج. عبدي xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay tababarkii dhalinyarada loo qabtay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay dhalinyar yar oo daryeelaya afka Soomaaliga inuu arko waxa uu ku gawaabiyay in ay horay u sii socdaan mar walbana oo la garab taagan yahay hiil iyo hoo يا شباب ويلي يا أبتك هدي ويدنا ولا لا استعراض شيكا كلا تامعني هيد معاي كنتو سيسا إنه قاب كيد كل كاسي إنه أبترسين تنو قابنا إنه إيه بالحكسنا شاه ما هي إن أديرك إن أبتك كاحي قوي ليش حتى لو ولا مالي هدينا استعلين ويسكو هكران يامو وبقف أو كلا ودم ويسكو هكران لكن ويلي أبتجي يسكو هكران ما أنت دقن كين رنت وكفر شيء كي يدو كلنا واردين شيء أنا وحني بالله أري هل كان ما أنت لقيني أنا جوابي تام وحن تجي magaalada la yiraahdo Istanbul toddobaatan dal baarlamaanadooda ay isugu yimid nin Senegalese oo gudoomiyaha baarlamaanka Senegal ayaanu isaga fadhiyay markaanu sheekaysanay wuxuu yiri Cabdi Xaashiyo anigu 74 shirkii oo ayuuda aniga oo wasiiragu waxaan kamid ahaa wafdigii Senegal wuxuu wasiir baan ahaa oo dalal caasimado fara badan oo Afrika waan soo arkay intaanan iran Muqdisho maalintaan imid Muqdisho saddex arrimood ayaa magaalada iiga muuqatay oo aanan ku arag magaalo kasto caasimad Afrika aanan ku arag wuxuu yiri waxay ahayd magaaladii ugu qurxoonaydeena tii ugu nadiifsanaydeena tii ugu ammaanka badnaydeena ka su'aal baan ku weydiinayaa dadku soo dadkii ma aha dalku soo dalkii ma aha
28 sano sidee ba dagaal uga socda يعني قياسا arrintu aad bay ii taabatay waxaan idhi dalku waa dalkii dadkusa dadkii ma sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu baaqay gabdhaha Soomaaliyeed in ay midabka dahabiga ay marnaba iska bedelin dhaqan shisheeye habayno waxaan gabdhaha Soomaaliyeed eray leeyahay oo aanan dhaafaynin waxa weeye midabka ugu qurxoon adduunka iyo gabdhaha lahaa ka digtoonaada waxaan midabkiini bedelahay ka digtoonaada waa cudur quruxdiinina wuu tuuraya waxaan leeyahay midabka gabdhaha Soomaaliyeed adduunkan waa midabka ugu qurxoon waxay al-Ustaad Cabdulqaadir Axmed Jubba waxaan guddoonsiinayaa gudoomiyaha aqalka sare halyeeyii iyo xiilkii afka hooyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi waa taariikh baan dahaba gashay yaa qodane yaa la guddoonsiya hambalyo waad guulaysatay guul baad joogtaa Jubba hadduu Cabdi Xaashi ayaa guddoonsiinaysa hambalyo shahaadada quruxda badan ishii aragta aan madaba ka jeesanayn hibo waxay noo sheegtay markay qaadatay in uu ula mid ahaa bachelor of Soomaali oo ay heshay kulliyadeeda ayaa leeyahay waxaan soo dhaweynayaa gudoomiye saaxiib walaal iyo soke ka mid ah saaxiibadii dufcadihii kala Cabdullaahi ayaa leeyahay gudoomiye haddaan kaftamo qadar waa musharax madaxweyne kunis 2012 laakiin qadar qodna wixii ka dambeeya ogolaan waxaan soo dhaweynayaa mishiin Sultan Socdaal warbaahinta qaranka One Nation TV Soomaaliya haddana Muqdisho